madaxda waqtigooda xilhaynta dhamaaday ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa hadda waxaa la sheegay in uu khilaaf xooggan soo kala dhexgalay kadib markii madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu soo magacaabay guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland. dhinaca kale Cabdixakiin Cumar Cami oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inuusan guddigaasi magacaabistiisu wax sal iyo raad leh aysan ahayn, isagoo u cuskaday in Cabdiweligaas uu jebiyay xeerka iyo habraaca loo magacaabo marka la magacaabayo guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland, taas oo uusan Cabdiweli marin. dhinacyada marka guddigani la magacaabayo ayaa waxaa la yiri waxaa ka wada tashadaa sida madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka isla markaasna magacaabista ku soo wada saara. intaa kadib ayaa waxaa dhinaciisa asaguna soo magacaabay guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Cabdixakiin Cumar Cami, isagoo bulshada reer Puntland ka raali geliyay in khilaafka iyo isqabsiga haatan soo kala dhexgalay asaga iyo Cabdiweligaas ay tahay wax aan loo baahnayn ummadda reer Puntland oo ka raali gelinayo. sidoo kale Cabdiweli Caligaas ayaan asagu wax uga ilaa iyo hadda aan ka soo saarin kana hadlin arintaasi. dhinaca kale bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxay ugu baaqayaan odayaasha dhaqanka ismada iyo waxgaradka oo ah marjaca ama tiirdhaxaadka ummadda reer Puntland in ay arintaasi si degdeg ah u soo farageliyaan isla markaasna xal degdeg ah laga gaaro, maadaama jiritaanka iyo midnimada ummadda reer Puntland ay ayagu masiirkeeda gacanta ku hayaan odayaasha dhaqanka ismada iyo waxgaradka maamul goboleedka Puntland. ilaa iyo hadda ayaan la sheegin wax xal oo laga gaaray isqabsigaas iyo khilaafkaasi yimid kadib markii labada dhinac ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland mid walba uu dhinaciisa ka soo magacaabay guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland. ilaa iyo haddana lama hayo wax xal ah oo ay gaareen. Raaga Maxamed Qaaji, Sabres News, Muqdisho. madaxda waqtigooda xilhaynta dhamaaday ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa hadda waxaa la sheegay in uu khilaaf xooggan soo kala dhexgalay kadib markii madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu soo magacaabay guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland. dhinaca kale Cabdixakiin Cumar Cami oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inuusan guddigaasi magacaabistiisu wax sal iyo raad leh aysan ahayn, isagoo u cuskaday in Cabdiweligaas uu jebiyay xeerka iyo habraaca loo magacaabo marka la magacaabayo guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland, taas oo uusan Cabdiweli marin. dhinacyada marka guddigani la magacaabayo ayaa waxaa la yiri waxaa ka wada tashadaa sida madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka isla markaasna magacaabista ku soo wada saara. intaa kadib ayaa waxaa dhinaciisa asaguna soo magacaabay guddiga khilaafka doorashooyinka Puntland madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Cabdixakiin Cumar Cami, isagoo bulshada reer Puntland ka raali geliyay in khilaafka iyo isqabsiga haatan soo kala dhexgalay asaga iyo Cabdiweligaas ay tahay wax aan loo baahnayn ummadda reer Puntland oo ka raali gelinayo. sidoo kale Cabdiweli Caligaas